بسم الله الرحمن الرحيم maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo blood supply of neural retina dhiigga neural retina yaa siiyo dhiigga blood supply iska geeya neural retina ayaan maanta cashir kooban ku sharxi doonaa hadduu ila yaraado anigoo isku dayi doono inaan si fahana muhiimad waa in aad fahantaan neural retina blood supply-geeda oo mostly confusing dadka ku ah oo marka clinically waxyaalo badan idinka caawin doonto mataqaanaa fahankeeda ugu horeyn maxaan ula jeedaa horta neural retina retinada marka inaad wax badan kasoo akhrisaan waa isaad u fahantaan blood supply-geeda iyo wixii tahay markaan oo kale inkastoo cashiro gooni aan ku sharxi doono mid walba iyo qayb walba oo kamid ah si detail ah retinada waxaa loo kala qaadaa neural retina iyo retina pigment epithelium neural retina waa inner part of the retina la dhahaa qaybtan hadda guduudan ee retinada ee markaad ophthalmoscope kale aad ku fiirinayso aad arkayso waa neural retinada qaybta kalena waa retina pigment epithelium oo qaybta waxay jirtaa outer partiga ama dhinaca choroidka uu naga jiro ayay jirtaa maanta markaan tan ka hadlayno waa tan oo neural retinahan ayaan rabnaa blood supply-gan inaan sharaxno si fahana hadduu ilaa yiraahdo isha sideedaba waxaa loo kala qaadaa layers saddex bay leedahay haddaan isha idiin sawiro layerkan ugu sarreeya waxaa la yidhahdaa sclera layer labaadaa ku xigo oo la yidhaahdo asagana choroid layerka ugu hooseeyana waa retina marka retinada qaybtan hoos tan soo xigto ee gudaha ayaa la yidhahdaa neural retina midda dhinaca choroidka xigta na waxaa la yidhahdaa outer retina marka taan sharaxayna caawa waa blood supply neural retina hadduu ila yiraahdo neural retina waxaa supply gareeyo central retinal artery and vein central retinal artery and vein waa wuxuu ka imaadaa ophthalmic artery la yiraahdo oo asagana kasii imaada internal carotid artery wuxuu kasii imaadaa carotid artery haween haddaan idin tuso kan waa mataqaanaa carotid artery waa kana qaybtan waa internal carotid artery wuu soo galay kan waa internal carotid artery haddaan sawirkan kale idin tusane waa kana ophthalmic artery meeshaana central retinal artery ayaa ku yaal central retinal artery waa kana marka inaad fahantiin bisaan rabaa intaas sawir ahaana idin tusaaya laakiin haddaan si fiican gudihiisa u wada gelayna sawir kale oo fiican waa kana oo muujinaya internal carotid artery waa kana mataqaana ophthalmic artery waa kana ophthalmic artery qaybta ugu horeysa branchiga ugu horeysa ka baxa waaye kadibna kan waa central retinal artery wuxuu galaa ophthalmic nerve-gu soo dhex maraa ophthalmic nerve-gu waa kan dhan ee meeshan maraya ayuu retinada kasoo dhex galaa almost 8 ilaa 15 millimeter gadaal behind globe ishii globe-ka waa kana 8 ilaa 15 millimeter gadaasheedu kasoo galaa mataqaanaa ophthalmic artery oo nerve kasoo gala optic nerve kasoo dhex galaa kadibna optic nerve through optic nerve ayuu wuxuu kasoo galaa globe-ka dhexdiisa ma fahanta neural retina qaybta gudihii waa marka optic nerve uu soo dhex maraa 8 ilaa 15 millimeter globe-ka gadaashiisa optic nerve kasoo dhex galaa kadibna neural retina ayuu meeshaas kasoo galaa haddaba si sharaxaada ay u fududaato neural retinada blood supply-geeda waxaan koodi isdhahay bal inaad fahantaan waxa aan soo wado waxa ay yihiin waxaan rabaa marka inaan idinkugu sharaxo si ay idinkugu fududaato amaba dee loo kala qaadaa waxa la yiraahdo superior inaan koodi idinsii kala sharax afartan shay yaraba superior iyo inferior iyo nasal iyo temporal kulli waa fahansantiin laakiin waxaan rabaa micnaha meeshan u socdo inaad sii fahantaan okay aan dhahnaba inay tan neural retina inuu right eye isha midig hadda waa tana qolfooftan fiiri isha midig waa tana ishaan midig neural retinadeena rabnaa inaan sharaxdo waxaan u kala qaadi doonaa
superior oo ah xididada qaybta kore aadi doono, inferior oo ah xididada qaybta hoose aadi doono, temporal oo ah xididada dhinacan temporal lobeka aadi doono, iyo nasal oo ah dhinaca sanka xididada soo aadi doono. marka xididada si fudud loogu kala fahmo waxaan u kala qaadi doonaa afartaas shay kuwa kala aadi doono iyo kuwa aadi doona dhinaca maculada. macula ayadana cashir gooni aan ku sharxi doonaa adigana inaad fahantaan jeclahay. haddaad hadda fahansanin insha Allah cashirada dambe aad ku fahmi doontaa. iyo kuwa dhinaca maculada aadi doona. maculada mar walba dhinaca temporalka xigtaa. marka intaasaan u kala qaadi doonaa. marka inaad sii fahantaan jeclahay superior iyo inferior iyo nasal iyo temporal. haddaba maxaan ka wadnaa? okay, ugu horeyn aan dhahno xididka koowaad aan dhahno inuu yahay superior, inuu kor naga xigo. superior temporal retinal artery and vein aa la dhahaa. maxaan ka wadaa? waxaa lagu yiri superior waa koruu jiraa, temporal aa lagu yiri waxaan kusoo sharaxnay temporal dhinacuu yahay, temporal lobka dhinaciisa inuu jiro. retinal artery and vein maxaan ka wadaa marka? tusaale aan dhahno hadda waa tanaa retinada, neural retinada waa tanaa. aan dhahno optic nerviga waa kana oo meeshii ay kasoo gelaysay dhiiggii waay. dhinacaana waa maculadii aan dhahno. maculada waxaa la yirahdaa macula waxaa kusii dhex yaala fovea, waa meeshii centralka qaybta aragga dhexe focuska u qaabilsaneed oo lightka marka uu soo galo meesha ugu horeyso focuska saara waa central mataqaana vision aa la dhahaa. oo dadka mostal markay duqowaan macular degeneration ku dhaco oo waxay lose gareeyaan aragga dhexe central visionka lose gareeyaan. marka maxaan ka wadaa? haddana waxaan idin sheegay inay qaybtan kore superior tahay, qaybtan hoose inferior tahay, dhinacaan wax soo xidhin dhinaca maculada tahay, dhinacaana uu yahay nasalka. haddaba waxaa lagu yiri xididka koowaad magaciisa superior temporal retinal artery and vein. micnaheedu waxa waaye waa superior uu aadaa, wuxuuna aadaa dhinaca temporalka. waa saas uu noqonaa marka retinal artery and vein. koo ma tahay? ka labaad waxaa la yidhahdaa inferior temporal retinal artery and vein. asagana maxaa laga wadaa? inferior waa hoos uu soo aaday, dhinaca temporalka uuna soo aaday. waa inferior temporal retinal artery and vein. ma fahanta? artery iyo vein aadayo dhinaca inferiorka oo ah hoos iyo temporalka oo ah temporal lobe. sababtoo inta waxaa naga jira dhan temporal lobe, intan waxaa naga jira nasal dhinaca sanka waay. korna waa superior, hoosna waa inferior. ma fahanta? marka waxay aadaan dhinaca temporalka, midna waa inferior hoos uu aadaa laakiin dhinaca temporalku aadaa, midna waa superior kor uu aadaa oo dhinaca temporalku aadaa. labadaas ma dhamaatay? haye waxaan noogu xigo superior nasal retinal artery and vein. kuwa waa superior, labo micnaha waxaan ka wadaa waxyar uu naga laabtaraa lahada. kan koowaad waa superior temporal, inferiorka waa sheegnay. waxaan noogu xigo superior nasal retinal artery and vein. maxaan ka wadaa? okay, retinadu waa tanaa. aan dhahno optic nerviga waa kana. aan dhahno maculada waa tanaa. waxyar optic nerviga waa u dhaweey. retinadu waa tanaa. optic nerviga waa kana. maculadana waa tanaa. kii koowaad wuxuu naga aaday dhinaca superior temporal waa soo sheegnay. waa artery iyo vein isugu jiraya. kuwa kale waxay ahayn inferior temporal. kan waxaa lagu yiri marka wuxuu jiraa superior nasal. waa superior waa kor, waana nasal dhinaca sanka. marka waxaa loo magacaabaa asagana superior nasal retinal artery and vein. maxaa noogu xigo? waxaa noogu xigo inferior nasal retinal artery and vein. asagana maxaa waaye? waa inferior hoos uu aadaa laakiin nasal dhinaca sanka uu aadaa. inferior nasal retinal artery and vein aa raacay bis. intaas marka maxaa noo dheer? intaas waxaa noo dheer superior macular retinal artery and vein. maculada ayada waxaan dhahnay ayada blood supply ma laha micnaha centerka, laakiinse waxay aadayeen dhinaceeda, way u dhawaanayeen. marka waxaa dhahan waa superior waa kor, dhinaca maculaduna aadaa. marka saasuu noqonaa superior macular retinal artery and vein. maxaa noogu xigo? waxaa noogu xigo inferior macular
retinal artery and vein oo ay asagan dhinaca maculada aada laakiin waa inferior waa hoos marka waa inferior macular retinal artery and vein inta loo kala qaado waa intaas retinada lagu sheegayo basal-like neural retinada basal-like waa intaas waa superior oo kor ah inferior oo hoose nasal oo dhinaca sanka temporal oo dhinaca temporal lobe-ka iyo maculada laba aadis kulligood marka waxaa loo kala qaadaa superior mid kor marayo inferior mid hoos marayo oo midna dhinaca sanka markuu aado waxaa leeyahay superior nasal hoos markuu aado waxaa leeyahay inferior nasal kuwa kor markii temporal dhinaca waxaa leeyahay superior temporal kan kale waxaa leeyahay inferior temporal labada soo harta waxaa leeyahay dhinaca maculada aadaya midna waxaa leeyahay superior macular maadaama uu korayo midna ka hooseeyna waxaa leeyahay inferior macular mid walba waxaa la raacinaa retinal artery and vein magacyadu waa kuwa marka superior temporal inferior temporal superior nasal inferior nasal superior macular iyo inferior macular haddaba maculada foveaha waxaa la yiraahdaa 14% oo dadka ka mid ah ayadoo waxaa supply gareeyo cilio-retinal blood oo ka imaaday mataqaana short ciliary arteries marka waa 14% of the people oo macnaha ka mid ah marka waxaa dhacda marmar qof central retinal artery occlusion uu haysto oo clinical finding iyo mataqaana diagnostic markii lagu suubiyo laga arkay inuu qabo mataqaana retinal artery occlusion haddana inuu arag yeesho marka dadkaas kale waxaa lahaa maculadooda waxaa supply gareynaya cilio-retinal marka 14% oo dad ka mid ah ku dhacda in case aa aragto aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah wax walbo ka mid ah mid walbo cashiro gooni aan kusii sharxi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inaad fahanteen aan jeclahay